waxaan rabaa gabar kastoo Soomaaliyeed oo meel walba adduunka joogto inaan la socodsiiyo gudniin maahan wax aad u baahan tahay inaad la noolaatid dib ku soo gaarsiiyo waxyaalo badan laga suubin karaa waa iska qali kartaa biskoontiisana waxay qaadataa hal ama laba beri aniga talaadiya ee qalay oo gudniinkeyga la furay arbacadii waa socday khamiistii kaba si fiicnaa jimco maanta ay tahay mabu malays qof la qalayna ahay marka saas u fududahay taada kala dhakhtaradana marka ay u sheegtay inay gudan tahay sababtoo ah gudniinka waa wax ka soo horjeeda xaq bini'aadanimada gabar yar oo maskiin ah lugaheeda inta la kala fariiqiyaa waxa laga goonayaa qayb ka ah jirkeeda kamid ah marka taas daraadeed waxay ka soo horjeedaa xaq bini'aadanimada marka hadduu gudniinka uu jirooyin badan ku keeno inaa ku noolaatid ma ahan maxaa iska adkeysatid anaa saas suubiyey qalad weyn oo ahaa waxaan jeclaan lahaa inaan ogaan lahaa inuusan ka biskoontiisa muddo igu qaadanaynin inuusan u fudud yahay waxyaalahaas dhan ogaan lahaa waa hore wax ka qaban lahaa laakiin sanadyo badan xanuun badan u adkeysanayay oo caadada si xun ugu jiray oo maxaa dhahaa kaleeto sirir kasoo kici kara markay caadada ay hayso dhibkan soo maray haddaan ogaan lahaa saan inuu u fududahay ama oo sababta aan la jiranayo dhan uu ahaa gudniin waa hore wax ka qaban lahaa laakiin cilmigana ma haysan mana ogeyn sida u fududaa marka labadaas cilmi la'aantooda daraadeed aan dhibkaas u maray intaas muddo badan laakiin waxaan ku faraxsanahay ugu dambeyntii inaan jawaabna helay ogaaday waxa dhibkii keenayay aan wax ka qabtay oo ka hortagay xanuun dambe soo marin gudniin ka socda mar dambe noloshayda marka waxaan rabaa walaalihii inaan u sheego qasamaha inaan ku noolaatid xanuunkaas Soomaaliya dhexdeeda xataa waxaa laga furay dhaqtarro isbitaalo yaryar oo ka caawiya gabdhaha furaayo hal story ama aan ka akhrinay internetka waxay ahayd gabar yar oo 19 sano jirto 3 sano dhiig ku dhacay gabadhaas 3 sano dhiigeeda hal mar maalin lama soo bixin maalintii dambe dhaqtara gabadha loo geeyay iyadoo xanuun aad u hayo caloosheeda markuu fiiriyay gabadha waxay u eg tahay qof 5 sano uurkiisa leh dhaqtarkii wuxuu u maleeyaa gabadha yarta inay u qarsanayso markuu laakiin si fiiriyay wuxuu ogaaday raajo u diray markuu raajada u diray waxa la arkay mindhicirkeedii dhiig ka buuxo sababtoo ah dhiigga caadada ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu korkeena ka soo baxo laakiin duleelku ka soo bixla markii la xiro sidii loogu talagalay uu ilaahay ugu talagalay uma soo baxayo wax yar yar soo baxayo xanuunkana dhibkaas keenay badan inta kale tan waa kugu noqonaysa marka kugu noqdo cudurrada uu keeni karo infection waxyaalo kamid ah xanuun badan oo caadada ka soo raacdo maxaa la dhahaa kala burooyin ka soo baxa mindhicirkaada dhexdiisa ilmeena dhali karin wax gudniin maahan wax aad u baahan tahay inaad la noolaatid dib ku soo gaarsiiyo waxyaalo badan laga suubin karaa waa iska qali kartaa biskoontiisana waxay qaadataa hal ama laba beri